بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. alle wuu ajiibay baryada haweentii kaagala doodaysay arrinka ninkeeda oo u sheeganaysay dhibaatadeeda Allah. allena waa maqlayay wada hadalkiina. alle waa wax kasta maqle wax kasta arka. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. kuwa idinka mid ah ee isaga xaaraantimeeya xaasaskooda hab ah dihaar iyagoo ku odhan hooyaday baad iga tahay sidaa kuma noqonayaan hooyooyinkood. hooyooyinkoodna ma aha cid kale aan ahayn kuwa dhalay. kuwaasi waxay ku hadlayaan hadal xun iyo been abuur. allena waa cafiye dembi dhaaf badan. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. kuwa isaga xaaraantimeeya xaasaskooda habdihaar ah ku yidhaahda hooyaday baa iga tahay markaas doonaya inay ka noqdaan waxay yidhaahdeen waa inay xoreeyaan addoon ka hor inta aysan istaaban galmoon. arrinkaasi waa kan la idinku waaniyo inaad qaadataan. allena waa u xog ogaal waxaad fashaan. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. kii aan helin addoon uu xoreeyo waa inuu soomo 2 bilood oo xidhiidh ah ka hor inta aysan istaaban galmoon. kiise aan awoodin soonka waa inuu quudiyo 60 miskiin. sidaasi waa si aad iimaan dhan ugu qabtaan alle iyo rasuulkiisa. taasina waa soohdimaha uu dhigay alle. xaq diidayaashuna waxay leeyihiin cadaab xanuun badan. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. kuwa colaadiya Allah iyo rasuulkiisa waa la dullayn sidii kuwii ka horreeyey loo dulleeyeyba waxaana soo dejinnay aayado cadcad. xaq diidayaashuna waxay leeyihiin cadaab dulaysa. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. maalinta qiyaamaha uu Allah soo bixin iyagoo dhan una sheegi waxay faleen. Allah wuu tiro koobay halka ay iyagu iska halmaameen. allana wax walba wuu arkaa.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. mawaadan ogaan inuu allaah og yahay waxaa ku sugan samooyinka iyo waxaa ku sugan arlada. Ma jiro meel saddex ku faqda uusan isagu ahayn kooda afraad, mana jiro faq ka dhex dhaca shan uusan ahayn kooda lixaad, mana jiraan wax intaas ka yar ama ka badan uusan isagu la jirin meel ay joogaanba. Kadib wuxuu u sheegi waxay camal faleen maalinta qiyaamaha. hubaal alle wax walba wuu og yahay. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. mawaadan arag kuwa yuhuudda ah ee laga reebay faqa xun markaas ku noqda waxaa laga reebay oo yeesha kulanno qarsoodi ah ay ku faqaan dembi iyo colaad iyo ku caasinta rasuulka. markay kuu yimaadaanna waxay kugu salaamaan wax uusan allaah kugu salaamin iyagoo si hoose u leh, muxuu allaah noogu cadaabi waayey? waxaan leenahay naar baa ku filan oo ay geli oo u xun meel la ahaado. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. kuwa xaqa rumeeyow, markaad faqaysaan ha ku faqina dembi iyo colaad iyo ku caasinta rasuulka ee ku faqa samaan iyo ka joogid dembiyada. dhowrana xilkuu idin saaray alle, kaasoo xaggiisa la idiin soo wada kulmin. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. sideedaba faqa xun waa uun camal shaydaan si uu u muruggeliyo kuwa xaqa rumeeyey, waxbase ma uu yeeli karo haba yaraatee wuxuu allaah idmo maahee. allaah uuna ha isku halleeyeen oo tala saarteen mu'miniinta. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. kuwa xaqa rumeeyow, marka la idinku yidhaahdo isu waasiciya fadhiga, isu waasiciya. allaah ha idiin waasiciyee naxariistiisa. marka la idinku yidhaahdona u kaca khayr u kaca.
allah wuxuu kor u qaadi kuwiinna idinka mid ah ee xaqa rumeeyey iyo kuwa cilmiga la siiyeyba darajooyin aad u sarreeya allena waa u xog ogaal waxaad fashaan. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. kuwa xaqa rumeeyow marka aad doonaysaan inaad la faqdaan rasuulka u bixiya wuxuun sadaqo ahaan faqiina ka hor sidaas baa idiin khayr badan oo daahirsan. haddiise aydaan helin wax aad bixisaan hubaal allah waa dembi dhaaf badane naxariis badan. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ma waxaad ka walaacdeen inaad kari weydeen inaad la baxdaan sadaqooyin ka hor la faqiina nebiga? haddii aydaan sidaas falin allena wuu idinka toobad aqbalaya ee ooga salaada oo bixiya sakada adeecana allah iyo rasuulkiisa allena waa u xog ogaal waxaad fashaan. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. mawaadan arag kuwa munaafiqiinta ah ee iyagu ka yeesha saaxiibo qolo cadho alle qaba yuhuudda. ma aha munaafiqiinta kuwa idinka tirsan idinka muslimiinta kamana tirsana gaalada waxayna ku dhaartaan been iyagoo og. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. allah wuxuu u diyaariyey cadaab daran xumaa waxay falaan. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. waxay ka dhigteen dhaarahooda gaashaan ay isku qariyaan markaasay ka weeciyeen dadka jidka ilaahay sidaas awgeed waxay leeyihiin cadaab dufaysa. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. maalkooda ama awlaadoodu waxna uguma taraan allah xaggiisa kuwaasi waa ehlu naar way ku dhex waari. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. maalinta qiyaamaha uu alle soo bixin iyagoo dhan way u dhaaraan alle siday idinku dhaartaan iyagoo mooda inay wax xujo ah haystaan. hubaal waa iyaga beenaalayaasha. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. shaydaan baa duufsaday oo hilmaan siiyey xusidda ilaahay. kuwaasi waa xisbiga shayddaanka waana xisbiga shayddaanka kuwa khasaaray. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. hubaal kuwa colaadiya allah iyo rasuulkiisa
kuwaasi waxay ka mid ahaan kuwa dulaysan. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Allah wuxuu qoray hubaal waan adkaan aniga iyo rusushaydaba. Hubaal Allah waa xoog badane adkaade ah. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. heli maysid qolo rumaysan Allah iyo maalinta aakhiro haddana jecel kuwa colaadiya Allah iyo rasuulkiisa haba ahaadaane aabbayaashood ama wiilashooda ama walaalahood ama qaraabadooda. Kuwan weeye kuwa uu qulubtooda Alle ku qoray iimaan uuna ku xoojiyey ruux hanuun xaggiisa ah wuxuuna gelin jannooyin beero ay hoostoodu webiyo qulqulaan iyagoo ku dhex waari weligood. Allah raalli buu ka yahay iyaguna raalli bay ka yihiin. Kuwaasu waa xisbiga Ilaahay. Ogaada hubaal xisbiga Ilaahay waa iyaga liibaanayaasha. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. waxaa xurmo weyneeya oo ka hufa ceeb iyo nuqsaan alle waxaa ku sugan samooyinka iyo waxaa ku sugan arlada waana adkaadaha xakiimka ah. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصير. alle waa kan ka saaray kuwa gaaloobay ee ka mid ahaa ehlu kitaabka guryahooda kulmintii hore. Ma aydan malaynayn inay baxayaan halka iyagu moodayeen inay dhufaysyadooda ka celinayaan Allah. Wuxuuse Allah uga yimid meel aysan marnaba filayn kuna tuuray argagax qulubtooda sidaa awgeed waxay ku baabi'iyeen guryahooda gacmahooda iyo gacmaha muuminiinta ee ku cibrad qaata kuwiinaan indheer garadka ahow. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النير. haddaanu alle u qorayn guuritaanka wuxuu ku cadaabi lahaa adduunkan aakhirana waxay leeyihiin cadaab naar ah. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. sidaas waxa uu sabab ah waxay colaadiyeen Allah iyo rasuulkiisa qofkii colaadiyana Allah hubaal Allah wuu daran yahay ciqaabkiisu.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. geed timreed kastoo aad goyseen ama aad ka tagteen iyadoo ku taagan jirriddeeda waa idanka Ilaahay iyo si uu u dufeeyo caasiyaasha. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. wixii maal alle uga soo ceshay rasuulkiisa xaggooda yuhuuddii reer Nadheer uma aydan qaadin duulaan aad ku dagaal gasheen fardo ama rakuub midna wuxuuse Allah ku salidaa rusushiisa ciduu doono. Allena wax walba wuu karaa oo awood u leeyahay. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. wuxuu Allah uga soo celiyay rasuulkiisa dadka magaalooyinka dagaal la'aan waxaa leh Allah rasuulka qaraabada dhow ee rasuulka agoomaha masaakiinta iyo musaafirka godoonsan si uusan maalku u ahaan wax ku wareegaysta oo keliya kuwiina hodanka ah dhexdood. wuxuu rasuulku amar idinku sii qaata wuxuu idinka reebona ka jooga dhowrana xilkuu idin saaray alle. hubaal alle wuu daran yahay ciqaabkiisu. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. waxaa wax ku leh maalka saboolka ka soo haajiray guryahooda iyo maalkooda iyagoo raadinaya fadli xagga Ilaahay ah iyo raalinimadiisa una gargaaraya Allah iyo rasuulkiisa kuwan weeye kuwa ah run badnayaasha. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. kuwii deganaana daarta Madiina ee qaatay iimaanka ka hor intaysan u soo hijroon walaalahood muhaajiriinta waxay jecel yihiin kuwa u soo haajiray xaggooda kamana helaan laabahooda wax u hanqaltaag ah wax ka mid ah waxa muhaajiriinta la siiyey waxayse ka hormariyaan oo uga dooraan nafahooda inkastaba iyagu faqri ha hayee. qofkii laga dhowrona bakhaylnimada naftiisa
kuwan weeye kuwa liibaanayaasha. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. kuwa imaana asxaabta nebiga kadib waxay dhihi rabbigayow noo dembi dhaaf innaga iyo kuwa walaalahayaga ee nooga horreeyey iimaanka, hana u gelin quluubtayada wax nacayb kuwa xaqa rumeeyey. rabbigayow waxaad tahay turid badane naxariis badan. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. mawaadan arag kuwa munaafiqiinta ee ku leh kuwa walaalahood ee gaaloobay oo ka mid ehlu kitaabka, haddii la idin saaro waa idinla baxaynaa, mana jiro cid aan idiin maqlayno weligeed, haddii la idinla dagaalamana waan idiin soo hiilin. allah baana ka marag inay yihiin beenalayaal. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. haddii la saaro yuhuuda marnaba munaafiqiinta lama baxayaan, haddii lala dagaalamana marnaba uma soo hiilinayaan, hadday u soo hiiliyaanna dhabarkay jeedin loomana gargaarayo. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. idinka muuminiinta cabsida ay idinku hayaan yuhuuda iyo munaafiqiinta laabahooda baa ka darantay ugu hayaan allah. sidaas waxaa ugu wacan waa qolo aan wax fahmin. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. idiinama dirirayaan yuhuuda qof ahaan inay ku jiraan maahee meelo dhufaysyo adag leh gudahood ama derbiyo gadaashood. cadaawada dhexdooda baa daran. waxaad moodaysaa inay yihiin kuwo wada jira, quluubtooduse waa qaybsan yihiin. arrinkaasi waxaa ugu wacan waa qolo aan garasho lahayn. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. waa sida kuwii iyaga waxyar ka horreeyey yuhuuddii reer qaynuqaac. waxay dhadhamiyeen cidhib xumadii arrinkooda, waxayna leeyihiin cadaab xanuun badan. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. munaafiqiinta iyo gaalada xaalkoodu waa sida shaydaanka ku yidhaahda aadmiga gaalow. markase uu gaaloobo yidhaahda anigu bari baan kaa ahay, anigu waxaan ka cabsan allah rabbiga umanka.
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. sidaa awgeed cidhibtooda waa inay ahaan naarta gudaheed iyagoo ku dhex waaraya weligood, waana sidaas abaalmarinta daalimiinta gar maqaatayaasha. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. kuwa xaqa rumeeyow, dhowra xilkuu idin saaray alle, naf walbana ha eegto waxay u hormarsatay beritoole qiyaamaha kana dhowrsada xumaha. allena waa u xog ogaal waxaad fashaan. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ha ahaanina sida kuwa hilmaamay alle isna markaas uu hilmaansiiyey nafahooda inay camalsan u fashaan, kuwan weeye kuwa ah caasiyaasha. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. masina ehlu naarka iyo ehlu jannaha. ehlu jannaha iyaga weeye kuwa ah liibaanayaasha. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. haddaan ku soo dejin lahayn qur-aankan buur, waxaad arki lahayd buurtiyo soo dhacaysa, la dilaacaysa, cabsida iyo ka haybaysiga Ilaahay darti. waxaana u soo qaadanaa mataaladan dadka bal inay fekeraan. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. waa allah uusan jirin ilaah kale oo xaq lagu caabudo isaga maahe, ogsoona aha waxa aan muuqan iyo waxa muuqdaba. waa naxariistaha naxariista badan. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. waa allah uusan jirin ilaah kale oo xaq ah isaga maahe, waa boqorka, daahirka, nabadgeliyaha, ammaan bixiyaha, korka ilaashaha uumankiisa, adkaadaha, kabaha, jabka, sanduleeyaha qooqanayaasha, ee iska leh weynaan oo dhan, xurmo oo idil waxaa iska leh oo hufan. allaah wuu ka sarreeya waxay shariik u yeelaan oy wax la wadaajiyaan. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. allah waa abuuraha uumaha wax weliba sawiraha qaabsiiyaha ah. isagaa leh magacyada wanaagsan ee quruxda badan. waxaa alle xurmo weyneeya oo hufa waxaa ku sugan samooyinka iyo arlada, waana adkaadaha xakiimka ah. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة
وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. kuwa xaqa rumeeyow ha ka dhiganina cadowgayga iyo cadowgiinaba sokeeye ama saaxiibo idinkoo u muujinaya kalgacayl xaggooda iyagoo ku gaalooba waxa idiin yimid oo xaq ah oo u soo saaray debadda rasuulka iyo idinkaba inaad rumayseen Allah rabbigiin darteed. haddaad u soo haajirteen inaad u jihaadaan jidkayga oo doonaysaan raalinimadayda ha ka dhiganina gaalada sokeeya kuwaasoo aad qarsoodi ugu muujisaan kalgacayl xaggooda aniguna waan ogahay waxaad qarisaan iyo waxaad muujisaanba qofkii idinka mid ahna oo sidan fala wuxuu dhab ahaan ka lumay jidka toosan ee islaamka. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. hadday gacanta sare yeeshaan gaaladu waxay idiin noqon cadow oo idin kula soo fidin gacmahooda iyo carabyadooda xumaan waxayna jecel yihiin inaad gaalowdaan. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. qaraabadiinna iyo awlaadiinnuba waxba idiinma tarayaan maalinta qiyaamaha. wuu idinkala xukumi oo idinkala saari gaalo iyo muuminiin. allena wuu arkaa waxaad fashaan. قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. waxaa idinku sugan ku dayasho wanaagsan Ibraahim iyo kuwii la jiray markay ku yidhaahdeen dadkoodii inagu bari baan idinka nahay idinka iyo waxaad caabudaanba Allah sokadii idin diidnay oo cadaawad iyo nacayb baa ahaaday dhexdeenna inaga iyo idinka abad ah jeer aad rumaysaan Allah keliya marka laga reebo qowlkii Ibraahim ku yidhi aabbihi waxaan kuu baryayaa dembi dhaaf alle uma salihi wax awood ah aan wax uun kaaga qabto Allah hortii. rabbigayow adigaynu isku kaa halaynaa oo ku tala saarannaa oo xaggaaga u soo laabannaa waana xaggaaga noqodka dambe. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. rabbigayow ha nagu salladin gaalada oo noo dembi dhaaf rabbigayow waa adiga adkaadaha xakiimka ah.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. waxaa dhab ahaan idinku sugan ku dayasho wanaagsan uu raaco qofkii rajeeya Allah oo ku haya maanka maalinta aakhiro. kiisa ka jeesta xaqa hubaal alle waa hodanka ammaanan. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. waa intaasoo Allah yeelo jacayl dhexdiinna idinka iyo kuwaad colaytanteen ee ka midka ah gaalada oo soo islaamaan. alle wax walba wuu karaa. allena waa dembi dhaaf badane naxariis badan. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. alle idinkama reebayo kuwaan idinkula diririn arrinka diinta oo aan idinka soo saarin dibadda guryihiinna inaad u samo iyo cadaalad fashaan. hubaal Allah waa jecel yahay kuwa caadiliinta ah. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. wuxuu alle idinka reebayaa kuwa idinkula diriray diinta darteed oo idinka soo saaray guryihiinna ama ku taageeray kuwa kale qixintiinna inaad ka dhigataan sokeeye. qofkii ka dhigta kuwaasi sokeeye waa kuwaas kuwa ah daalimiinta. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. kuwa xaqa rumeeyow hadday idiin yimaadaan haween muminooyin ah iyagoo ka soo haajiray gaalada imtixaana inay ka dhab tahay iyo in kale Allah baa ogsoon iimaankooda. haddaad ogaataan inay yihiin muminooyin dhab ah ha u celinnana gaalada uma aha dumarkani xalaal iyaga umana aha nimanka gaalada ah xalaal iyaga oo siiya nimankoodii hore ee gaalada ah waxay bixiyeen meher ahaan. ma jiro wax dembi ah oo korkiinna ah inaad guursataan markaad siisaan meheradooda hana u haysanina haweenka gaalada mushrikiinta ah xaasas ahaan oo weydiista in la idiin soo celiyo waxaad bixiseen meher ahaan iyaguna gaalada ha weydiistaan in dib loogu soo celiyo waxay bixiyeen meher ahaan. kaasu waa xukunka Ilaahay isaga baa idinkala xukumi. allana waa wax kasta oge xakiim ah. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم
مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. hadday wax ka mid ahi xaasaskiinna idinka aadaan xagga gaalada markaas guul heshaan iyo qaniimo siiya kuway xaasaskoodu tageen oo gaalada ku biireen wax u dhigma waxay bixiyeen oo meher ah kana cabsada Allah ee ah kan aad rumaysan tihiin. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. nebiyow markay kuu yimaadaan dumar muminooyin ah si ay kugula ballantamaan inaysan u shariik yeelayn waxba la jirka Allah, inaysan wax xadayn oo sinaysanayn oo aysan dilayn carruurtooda oo la imanayn masabid ay iyagu naf ahaantooda ku been abuuran gacmahooda iyo adimadooda kuguna diidayn wixii wanaag ah aad amarto, markaa aqbal ballankooda ugana bari Allah inuu u dembi dhaafo. hubaal Allah waa dembi dhaaf badane naxariis badan. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. kuwa xaqa rumeeyow ha ka dhiganina sokeeye ama saaxiibo qolo cadho Ilaahay qaba aakhirana ka quustay sidayba gaaladu mushrikiinta uga quusteen ehlu qubuurka. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. waxaa xurmo weyneeya oo hufa alle waxaa ku sugan samooyinka iyo waxaa ku sugan arlada. alle waa adkaadaha sare xakiimka ah. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. kuwa xaqa rumeeyow maxaad u leedihiin wax aydaan falayn. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. waa wax uu alle necab yahay inaad ku hadashaan wax aydaan falayn. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Allah wuxuu jecel yahay kuwa ku dirira jidkiisa u jihaada iyagoo safaf ah aad moodo dhismo laysku dhajiyey. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. xus nabi maxamedow markuu muuse ku yidhi tolkiisii tolkayow maxaad ii dhibaysaan idinkoo og inaan ahay rasuul Ilaahay xaggiina loo soo diray. markay xaqii ka iisheen ayuu allena sii iilay qulubtooda. alle ma hanuuniyo qolada caasiyiinta ah.
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. xus markuu ciise wiilkii maryam yidhi ilmahii israa'iilow waxaan anigu ahay rasuul ilaahay xaggiinna loo soo diray rumayn towraadda la soo dejiyey hortay idinkuna bishaaraynaya rasuul imaan gadaashay oo magaciisu yahay axmed. markiise uu ula yimid xoojin cad waxay yidhaahdeen kanu waa sixir cad. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. yaa ka dulmi badan midka been sheega alle isagoo loogu yeedho islaamka. alle ma hanuuniyo qolada daalimiinta ah. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. waxay doonayaan gaaladu inay nuurka ilaahay xaqa ku damiyaan afafkooda. allese waa taamyeeli nuurkiisa haba nacayn gaaladuye. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. alle waa kan la soo diray rasuulkiisa maxamed hanuunka iyo diinta xaqa ah si uu uga sare mariyo diimaha khilaafsan oo dhan haba nacayn mushrikiintuye. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. kuwa xaqa rumeeyow ma idin tusaa ganac idinka badbaadinaysa cadaab xanuun badan. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. waa inaad rumaysaan allah iyo rasuulkiisa maxamed oo u jihaadaan jidka ilaahay idinkoo u huraya maalkiinna iyo nafahiinnaba sidaasaa idin khayr badan haddaad og tihiin. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. wuxuu idin dhaafi dembiyadiinna oo idin gelin jannooyin beero ay webiyo hoos qulqulaan iyo guryo wanaagsan oo ku dhex yaal beeraha negaya ee jannada. kaas baa ah liibaanta weyn. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. arrin kaloo aad jeceshihiinna wuu idin siin gargaar xagga ilaahay ah iyo guul dhow. u bishaaree muuminiinta. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. kuwa xaqa rumeeyow
ahaada kuwa u gargaara diinta Ilaahay siduu ku yidhiba Ciise ina Maryam hertiisii waa kuwa iigu gargaaraya diinta Ilaahay. Hertii waxay yidhaahdeen innagaa ah u gargaarayaasha diinta Ilaahay, markaasay qayb ka mid ah ilmahii Israa'iil rumeeyeen oo qayb kale gaaloobeen. Waxaana taageernay kuwii xaqa rumeeyey oo ka adkaadeen cadowgoodii markaasay ka muuqdeen ka taliyeen arlada. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. waxaa xurmo weyneeya oo hufa alle waxaa ku sugan samooyinka iyo waxaa ku sugan arlada. Allah waa boqorka, daahirka, adkaadaha, xakiimka ah. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. alle waa kan ka soo saaray ummiyiinta dega Makka dhexdood rasuul ka mid ah u akhriyaya aayadihiisa, daahirinaya, barayana kitaabka iyo xikmadda, inkastoo horay u ahaayeen kuwa ku sugan habow cad. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. wuxuu sidoo kale u diray kuwa kale oo ka mid ah aan weli ku soo biirin. allena waa adkaadaha xikmadda badan. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. arrinkaasi islaamka iyo nebiga la soo diray waa deeq Ilaahay uu siiyo ciduu doono. allena waa deeq iyo fadli weyn yahay. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. mataalka kuwa loo xil saaray towraadda markaas aan ku camal falin oo gabay qaadista xilka waa sida dameer xambaarsan kutub culus aanse waxba ka fahmin. xumaa tusaalaha kuwa beeniya aayadaha Ilaahay. allena ma hanuuniyo daalimiinta gar maqaatayaasha. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. idinka haysta diinta yuhuudiyadow. haddaad sheegataan inaad tihiin awliyo alle dadka kale ka sokow jeclada dhimasho haddaad run sheegaysaan. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ma jeclaanayaana weligood dhimasho waxay gacmahoodu horay u geysteen darteed oo dembiyo ah. allena waa og yahay daalimiinta. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. waxaad ku dhahdaa geerida aad ka carartaan way idinla kulmi, markaasaa dib la idinku soo celin xagga alle ogsoonaha waxa aan muuqan iyo waxa muuqdaba, wuxuuna idiin sheegi idinka jaasayn waxaad camal fali jirteen.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. kuwa xaqa rumeeyow marka la isugu yeero salaada maalinta jimcaha u degedga xusidda Ilaahay kana taga ganacsiga sidaas baa idin khayr badan haddaad ogtihiin. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. markase salaada la dhammeeyo ku kala faafa arlada dalbana deeqda Ilaahay aad qaraabo salaan booqda qof buka fasha ama losan xusana Ilaahay oo ku saliya nebiga in badan aad liibaantaane. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. mar ay arkeen ganac ama madadaalo way u kala yaaceen xaggeeda kaana tageen nebiyow adigoo taagan oo khudbo jeedin dheh waxa alle uu haysto baa ka khayr badan madadaalo oo ka khayr badan ganacsi kasta. allena waa kan u wanaagsan inta wax irsaaqda. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. markay munaafiqiintu ku yimaadaan Maxamedow waxay yidhaahdaan waxaanu marag ka nahay inaad tahay rasuul Ilaahay. allena waa og yahay inaad tahay rasuulkiisa. allena wuxuu marag ka yahay inay munaafiqiintu yihiin beenaalayaal. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. waxay ka dhigtaan dhaarahooda gaashaan oo sidaas uga weeciyaan dadka jidka Ilaahay. xumaa waxay falaan. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. arrinkaasi waxaa ugu wacan inta rumeeyaan af ahaan bay haddana hoosta ka gaaloobaan markaasaa quluubtooda la daboolay sidaas awgeed wax ma fahmaan. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. markaad aragto munaafiqiinta wuu ku cajabgelin muuqaalka jirarkooda. hadday hadlaanna waad dhegaysan hadalkooda waxaad mooddaa dogobyo la tiirtiiriyey oo dhar la huushay. waxay moodi dhawaaq walba in iyaga loogu dan leeyahay. waa iyaga cadowga ee ka digtoonow. allaha baabi'iye. xaggee looga iilay xaqa. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. marka lagu yidhaahdo munaafiqiinta kaalaya ha idiin dembi dhaaf dalbee rasuulka Ilaahay waxay dib u jeediyaan madaxyadooda oo arkaysaa iyagoo sii jeesanaya iyagoo isla weyn.
سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. waa isugu mid haddaad u dembi dhaaf dalabto nebiyow iyo haddaadan u dembi dhaaf dalbin marnaba alle u dembi dhaafi maayo. alle ma hanuuniyo kuwa caasiyaasha ah madaxa adag. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. iyaga weeye kuwa yidhaahda waxaa ku bixinana kuwa la jira rasuulka ilaahay jeeray ka kala yaacaan. allah baana iska leh khasnadaha samooyinka iyo arlada laakiinse munaafiqiintu ma fahansana. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. waxay yidhaahdaan munaafiqiinta markaan u laabanno madiina kan goobta ahi waxay ula jeedaan cabdullah bin abi salool madaxii munaafiqiinta wuxuu ka saari halkaa kan gunta ahi waxay ula jeedaan nebi maxamed rasuulullah. allah baase iska leh sharaf iyo ciso dhan sidaa awgeed waxay u ahaan ciso rasuulkiisa iyo mu'miniinta laakiinse munaafiqiintu ma oga. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. kuwa xaqa rumeeyow yeesan maalkiinnu iyo awlaadiinnu idinka shuqlin xusidda ilaahay salaada. qofkiina falaa sidaas kuwa weeye kuwa khasaaray. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. oo bixiya wax ka mid ah waxa aanu idin siinay inta aysan geeridu u iman midkiin oo markaas oo dhan rabbiyow maad muddo dhow dib ii dhigtid markaa waxaan la baxayaa sadaqo oo ka mid ahaan kuwa wanaagga fala. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. alle se dib uma dhigo nafi marka ajasheed la gaaro. allena waa u xog ogaal waxaad fashaan. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. waxaa xurmo weyneeya oo hufa alle waxaa ku sugan samooyinka iyo waxaa ku sugan arlada. allah baana leh boqortooyada oo leh ammaan idilkeed iyo mahadba oo wax walba kara. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. alle waa kan idin abuuray markaas qaarkiin noqdeen gaalo qaarkiina muuminiin. allena wuu arkaa waxaad fashaan. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. wuxuu ku abuuray samooyinka iyo arlada xaq
wuuna idin suureeyey oo wanaajiyey suuradahiinna waana xaggiisa noqodka dambe aakhirada. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. wuxuu og yahay waxa ku sugan samooyinka iyo arlada, wuxuuna og yahay waxaad qarisaan iyo waxaad muujisaanba. allena waa ogaha waxa ku jira laabaha. ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ma wuusan idin soo gaadhin warka kuwii xaqa diiday awal hore, waxay dhadhamiyeen cidhib xumadii arrinkooda, waxayna leeyihiin cadaab xanuun badan. ذلك بأنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. arrinkaasi waxaa ugu wacan waxay ula yimaadeen rusushoodii xujooyin cad, waxayse yidhaahdeen ma qof aadmi ah baana hanuuninaya. markaasay gaaloobeen oo ka jeesadeen xaqa, allena uma baahna cidna oo alle waa hodan deeqtoon ammaanan. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. kuwa xaqa diida waxay moodaan inaan marnaba laga soo bixinaynin iilka. dheh, haayo, waa igu rabbigaye, waa la idin soo bixin, markaas waxaa la idiin sheegi oo la idinka jaasayn waxaad fasheen, arrinkaasina alle wuu u fudud yahay. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. rumeeya allah iyo rasuulkiisa nebi Muxamed iyo nuurka qur-aanka aan soo dejinnay. allena waa ka warhayaa waxaad fashaan. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. maalinta qiyaamada uu idiin soo kulmin idinkoo dhan maalinta kulanka, taasu waa maalinta qof khayr helo ama ku dhacdo khasaaro weyn. qofkiina rumeeya allaah oo samafala wuxuu ka tiri dembiyadiisa oo gelin jannooyin, beero ay hoostooda webiyo qulqulaan ay ku dhex waarayaan weligood, taasi waa liibaanta weyn. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. kuwase xaqa diida oo beeniya aayadahayaga, kuwaasu waa ehlu naar, iyagoo ku dhex waaraya weligood. xumaa aytiin ahaan iyo meel la ahaado. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ma jirto wax masiibo ah oo dhaca ilaa waxay ku dhacdaa idanka Ilaahay. qofkiina rumeeya Allah wuxuu hanuuniyaa qalbigiisa oo xasila. allena wax walba wuu og yahay. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. adeeca Allah
adeecana rasuulka haddaadse jeesataan xaqa diidaan waxaa saaran rasuulkayaga oo keliya gaarsiin cad الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون allah ma jiro ilaah xaq lagu caabudo aan isaga ahayn allah oo keliya ha isku haleeyaan mu'miniintu يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم kuwa xaqa rumeeyow waxaa ka mid ah xaasaskiinna iyo ilmahiinna kuwa cadow idiin ah ee ka digtoonaada haddaadse iska cafidaan gefafka ay idinka galaan oo saamaxdaan adduunyo wixii la xidhiidha oo u ceeb qarisaan alle waa dembi dhaaf badane naxariis badan إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم maalkiinna iyo awlaadiinna waa uun imtixaan allah agtiisase waxaa ah abaalgud weyn janno فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون dhowra xilkuu idin saaray alle intii karaankiinna ah oo maqla adeecana lana baxa sadaqo idinkay idiin roon tahay qofkiina laga dhowro bakhaylnimada naftiisa kuwaasi weeye kuwa liibaani إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم haddaad amaahisaan alle amaah wanaagsan waa bixisaan sadaqo ilaahay dartii ama deymisaan walaal muslim ah dayn aan kor saar lahayn wuu idiin laba laabayaa ajarka oo idiin dembi dhaafi allena waa tixgeliye wanaagga ajar siin iyo dulqaad badan عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم alle waa ogsoonaha waxaan muuqan iyo waxa muuqda adkaadaha xakiimka ah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا nebiyow markaad furaysaan haween fura iyagoo markaas ku jira wakhtiga loo qabtay furitaanka waa iyagoo daahir ah oo dhiigga caadada ka mayrtay aydaana u galmoon oo u tiriya si dhan maalmaha ciddada muddada ay sugayaan furitaanka kadib dhowrana xilkuu idin saaray allah ee rabbigiin ah ha uga saarina xaasaskiinna dibadda guryahooda yaysan iyaguna bixin intay ciddada ku jiraan ee la soo ceshan karo inay la yimaadaan maahee xumaan cad kuwaas waa soohdimaha uu dhigay allah qofkiina ka tilaaba soohdimaha uu dhigay allah wuxuu dulmiyey naftiisa mid ka furayow xaaskiisa ma ogid waxaa laga yaabaa inuu alle dib ka keeno xaal cusub فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم
منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. markay ku dhowaadaan dhammaadka ciddadooda la qabtay dib ugu soo ceshada si wanaagsan oo gar ah ama u kala taga si wanaagsan oo gar ah oo u gashada markhaati kolka aad rabtaan inaad soo ceshataan ama aad furtaan laba cadaalad leh oo idinka mid ah muslimiin ah una toosiya maragga Ilaahay dartii. arrinkaasi waa waano lagu waanin qof kastoo rumaysan Allah iyo maalinta aakhiro. qofkiina dhowra xilkuu saaray Allah oo ka dhowrsada xumaha wuxuu u yeeli jid uu kaga baxo dhibaato kasta. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. oo wuxuu ka siin risiq xagga meel uusan filayn. qofkii tala saarta Allah oo isku haleeya wuu ku filan yahay. hubaal alle wuu fulaa muraadkiisa. alle wuxuu u yeelay wax walba qadar iyo waqti go'an. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. kuwa ka mid ah haweenkiina ee ka quustay xaylka haddaad ka shakidaan muddada xaylkooda ciddadoodu waa 3 bilood iyo kuwa sidoo kale aan weli helin dhiigga caadada kuwase uurka leh hadday yihiin kuwa la furay ama nimankooda ka dhinteen ciddadooda waa intay ka dhigaan culeysyadooda oo ka dhalaan. qofkii dhowra xilkuu saaray Allah oo ka dhowrsada xumaha wuxuu uga dhigi arrinkiisa wax u fudud. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. kaasi waa amarka Ilaahay uu idiin soo dejiyey qofkiina dhowra xilkuu saaray Allah wuxuu ka tiri xumaatooyinkiisa oo siin ajar weyn. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. dejiya haweenka ciddada ku jira meeshaad degan tihiin hadba sida karaankiinnu yahay hana dhibina si aad u gelisaan cidhiidhi dhanka habdhaqanka deegaanka iyo masruufka si ay isu madax furtaan. hadday leeyihiinna uur masruufa intay ka dhigaan culayskooda dhalaan. markaas hadday idiin nuujiyaan ilmaha siiya gunnadooda oo isfara dhexdiinna samafalka haddaad iskhilaaftaana mid kale ayaa u nuujin. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها
سيجعل الله بعد عسر يسرا. kan ladani waxaa ka bixiya maalka loo waasiciyey kiina ilaha ay wax ka soo galaan cidhiidhi yihiin ha bixiyo wax ka mid ah wuxuu alle siiyey. alle kuma kalifo nafna wuxuusan siin. alle wuxuu keeni faraj iyo fudayd dhibaatada kadib. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. maxay badan tahay magaalo ku caasiday amarka rabbigeed iyo rusushiisa markaas aan ugu yeernay xisaab daran adduunka oo aan ku cadaabi cadaab adag aakhirada. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. oo dhadhamisay cidhib xumadii arrinkeeda cidhibteedana ku dambaysay khasaaro. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. allah wuxuu u diyaariyey kuwa cadaab daran. ee dhowra xilkuu idin saaray allah waxgaradkow xaqa rumeeyey. wuxuu allah idiin soo dejiyey waano quraankan. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. rasuulna wuu idiin soo diray idiin akhriya ayadaha ilaahay ee cad si uu ugaga saaro kuwa xaqa rumaysan oo samaha fala mugdiyada xagga nuurka. qofkiina rumeeya allah oo samafala wuxuu gelin beero jannooyin ay hoostooda webiyo qulqulaan iyagoo ku dhex waaraya weligood. allah waa uu wanaajiyey kaasi risiqa. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. allah waa kan abuuray 7 samood arladana intaa oo kale ka abuuray. amarkiisa ka soo dego dhexdooda si aad u ogaataan inuu alle wax walba karo iyo in allah ku koobo wax walba ogaal. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. nebiyow maxaad uga xarimaysaa naftaada wuxuu allah kuu xalaaleeyey si aad u raali geliso xaasaskaaga. allena waa dembi dhaaf badane naxariis badan. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. allah wuxuu horayba idinku jideeyey dhaar furiyo allena waa gargaarahiin waana wax walba ogsoonaha xakiimka ah. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض
فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. xusuuso markuu nebigu ku qarsaday war sir ah mid ka mid ah xaasaskiisa xafsah akiir markayse u sheegatay mid kale caaishah akiir warka allena u daahiriyey nebiga wuxuu xusay qaar ka mid ah waxay sheegtay oo iska daayay qaar. markuu u sheegay arrinkaa waxay tidhi yaa kuu sheegay arrinkani? wuxuu yidhi waxaa ii sheegay wax walba ogsoonaha xog ogaalka ah. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. haddaad labadiinnu xafsah iyo caaisha alle u noqotaan oo toobad keentaan inkastoo quluubtiinnu iilatay alle wuu idiin dembi dhaafi. haddaadse isu kaalmaysataan nebiga dhibkiisa hubaal alle baa ah gargaarahiis iyo jibriil iyo muuminiinta wanaagsan malaa'igta kale baana intaas kadib garab u ah. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وإنتاسو ربي هدو نبيغو إذن فرو سيو بدلكين حاسس إذنك خير بدن مسلموين مؤمنوين داعد soo noqosho badan caabidooyin soomanooyin leh garoobo iyo bikrooyin. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. kuwa xaqa rumeeyow ka dhowra nafahiina iyo eheladiinaba naar shidaalkeedu yahay dad iyo dhagaxaan ay u xilsaaran yihiin malaa'ig adag oo daran kuma ay caasiyaan allah wuxuu ku amraba waxayna falaan wixii la amro. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قالوا ha cudur daarannina maanta waxaa la idinku abaalmarin wax waafaqsan waxaad fasheen. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. kuwa xaqa rumeeyow u toobad keena allah toobadsan si uu rabbigiin idinka tirtiro xumaatooyinkiina idin geliyona beero ay hoostoodu webiyo qulqulaan
maalinta uusan alle hoojinayn nebiga iyo kuwa xaqa la rumeeyey nuurkoodu socon hortooda iyo xagga gacmahooda midig waxay oo dhan rabbigayow noo dhammaystir nuurkayaga oo noo ceel astuur adigu wax walba waad kartaaye يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير nebiyow aad ula halgan gaalada nabaddiidka ah iyo munaafiqiinta kuna adkow hoygooduna waa naar oo u xun meel la ahaado ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين allah wuxuu tusaale uga dhigay kuwa gaalada ahi xaaskii nuux iyo xaaskii luud waxay hoos joogeen laba addoon oo ka mid ah addoommahayaga wanaagsan waxayse u dhaqmeen si khiyaano ah xaggooda marka waxba iyagu ugama ay tarin xaasaskoodii xagga ilaahay waxaana la yidhi la gala naarta kuwa gala وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين wuxuuna alle tusaale uga dhigay kuwa xaqa rumeeyey xaaskii fircoon markay tidhi rabbiyow iga dhis guri agtaada jannada gudaheeda oo iga samata bixi fircoon iyo camal xumadiisa igana samata bixi qolada daalimiinta gardiidka ah ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين iyo sidoo kale maryam gabadhii cimraan taasoo xafiday farjigeeda waxaana ka afuufnay jeebka cambuurkeeda uu ka afuufay malag jibriil waxayna rumaysay kelmadihii rabbigeed iyo kutubtiisa kana mid ahayd kuwa alle adeeca